السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دعوضيال كسر دودا وروحي دلك يدبد نجسو كاري قضبة كل دوان اتكو دعوانا سانوركنا وحكمدا مدحوينها درويدا مدن اسماعيل عمر جيلا ayaa dalka ku soo laabtay kadib markii uu ka soo qayb qaatay shirweynaha jaamacadda Carabeed ee ka dhacay Nouakchott caasimadda Mauritania dalka Japan dil ka dhacay dalkaasi waxa ku geeriyooday dad fara badan qodobadaasi ayaa ugu dar corona imkana waxa la soconaysaan qodobada iyo qodob kale madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa dalka ku soo laabtay kadib markii uu ka qayb qaatay shir madaxeedka 2020 ee jaamacadda Carabta amuraha ugu waaweyn ee loo hadlay kaasi ayaa ahaa xoojinta wada shaqeynta jaamacadda Carabta la dagaalka argagixisaha iyo xasilinta iyo colaadaha ka taagan wadamada Carabta sidii loo xasilin lahaa oo lagu soo dabaan lahaa xal nabadeed inta uu joogay madaxweynaha jamhuuriyadda caasimadda Mauritania waxa uu la kulmay hogaamiyayaasha wadamada Carabta socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda wax ku weheliyay wafdi ballaaran oo kamid ahaa wasiirka arrimaha dibadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf garoonka diyaaradaha qolkii uu ka soo degay waxa si diiran soo dhaweeyay mas'uuliyiin ku jiray rayid iyo military howlaha shir madaxeedka 2020 ee jaamacadda Carabta ayaa shalay galinkii dambe laga soo gabagabeeyay magaalada Nouakchott ee caasimadda dalka Mauritania waxaana shirkaasi ka qayb qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele shirkaasi waxa laga hadlay rabitaanka ku aadan wadamada jaamacadda Carabta la dagaalanka argagixisada iyo xoojinta midnimada iyo wada shaqeynta jaamacadda Carabta faalantaasi ka badan waxay noo hayay Maxamed Cabdilaahi Cumar kalfadhiga 720aad ee madaxda Carabeed ayaa laga soo gabagabeeyay magaalada Nouakchott ee caasimadda dalka Mauritania iyadoo madaxduna ay isku afgarteen in la hirgeliyo qarar fara badan si loo dhimo dhibaatooyinka kaloosan wadamo badan oo Carabeed madaxda Carabeed ayaa waxa ay cusboonaysiiyeen mar kale sida uga go'an tahay inay sii wadaan dadaalada looga hordegayo argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele oo khudbad ballaaran jeediyay furitaankii kalfadhiga 720aad ee madaxda Carabeed ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in ay mideeyaan dawladaha Carabtu dadaalkooda ku wajahan ka hortagga xagjirnimada islaamka qoraalka gabagabada ee kalfadhigan ayaa lagu sheegay in arinta dalka Falastiin ay tahay udub dhaxaadka arrimaha Carabta waxayna ugu yeedheen Israa'iil inay ogolaato in la asaaso dawlad ay leedahay Falastiin oo xudeedu ka soo bilaabmayso sanadku markii uu ahaa 1967 sidoo kalena waxa uu tilmaamay madaxweyne Geele in loo baahan yahay in la isgarab taago dalka Soomaaliya xilligan isagu ku jira marxalad muhiim ah oo kala guura iyadoo la isku diyaarinayo in wadankaasi laga qabto qorashooyinka madaxtinimo Maxamed Cabdilaahi Cumar shirweynaha tobnaad ee marwooyinka koowaad ee dalalka Afrika ee xakameynta cudurka ku dhaca ilmagaleenka ayaa saaka ka furmay xarunta dhexe ee midowga Afrika ee caasimadda Addis Ababa dalka Itoobiya waxa shirkan lagaga hadlayaa waxqabadka laga sameeyay arintaasi inta maqan wali waxa gudoominaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn waa tan warbixintan ka soo diyaarinay ee gudoomiyaha marwooyinka koowaad ee dalalka qaaradda Afrika ayaa 3 maalmood oo shir ah kaga arinsan iyo rabitaankooda ku aadan ka hortagga cudurka ku dhaca ilmagaleenka iyo naasaha ka mid yahay kansarka marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud horqacaysa wafti ballaaran ayaa ka qayb qaadanaysay shirkan waxaana kamid ahaa waftiga shirka ku weheliyay marwada koowaad agaasimaha xarunta caafimaad ee taranka hooyada Hussein danjiraha Djibouti u fadhiya iyo mas'uuliyiin kale marwada koowaad ee dalka Ethiopia Roman Tesfaye oo ka hadashay shirka waxay ugu horeyn sheegtay in marwooyinka koowaad ee dalalka Afrika door weyn ka qaadanayaan badbaadada qoyska iyo hor u marinta caafimaadka bulshada shirkaasi waxa lagu abuuray sidii loo xakameyn lahaa kansarka naasaha ka dhaca iyo ilmagaleenka haweenka qaaradda Afrika arintaasi waxay galaafatay nafaha in ka badan 8 milyan oo haween ah dunida oo dhan sanad walba munaasabada furitaanka shirka marwada koowaad ee dalka Kenya Margaret Kenyatta oo haysay xilka madaxtinimo ee shirweynaha ayaa waxay xilkaasi ku wareejisay marwada koowaad ee Ethiopia qorqday caalamka muujinaya in ayadu hormood u noqotay dadaalkaasi inta lagu jiro 2016 2017 ra'iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn
waxa uu geestiisa hoosta ka xariiqay in ka badan 30% uu geeriyootay sababta la xidhiidha cudurka kansarka waxaana loo baahan yahay ayuu yiri kooxdad awood leh oo lagu xakameeyo saameynta cudurka ee qaaradda gabagabada munaasabada furitaanka Margaret Kenyatta marwada koowaad dalka Kenya oo hata madaxa oo xilku ka dhamaaday ee shirka iyo Francis Niki oo asaas ururka ku dadaala wax ka qabashada kansarka ku dhaca ilmo galeenka iyo naasaha ayaa ku maamusay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya in uu noqdo qof dhaqdhaqaaqa rabitaan aad u leh dadalka lagaga hordagayo cudurka kansarka munaasabadaasi waxa lagu soo afmeeray sawir wadareed muujinaya dadal midaysan oo tis qaaday oo lagaga hordagayo kansarka ku dhaca ilmo galeenka iyo naasaha gobolka Tajora wafdi balaaran oo horkacayo ku wasiirka arrimaha gudaha ahna wasiirka wasaaradda u qaabilsan balaarinta maamulka Xamed Maxamed Aramiis oo kamid yihiin mas'uuliyiinta wasaaradda barashada ayaa gaadhay degmada Darra halkaas oo ay kaga qayb qaadanayaan munaasabada furitaanka laba dugsi cusub oo garabtisan laga dhisay wafdigaas waxa kamid ah xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada Abdalla Maxyuub iyo prefect gobolka Tajora Abdul Maxamed Banayta wafdigaasi ayaa waxa halkaas reer garabtisan uu yahay gargaar iskugu jira dhar iyo cunno xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada Abdalla Maxyuub oo isaguna halkaas ka hadlay waxa uu ka dalbay reer garabtisan in caruurtooda qoraan baaxad leh oo tiro badan dugsiyada waxaana uu balqaaday in barayaal halkaas la geeyni doono xarun arta raashinka laga siiyana loo dhisayo isla fursadaasi koox dhakhaatiir ah oo ka tirsan gobolkaasi ayaa dadweynaha halkaasi ku nool u sameeyay hawlo caafimadeed oo bilaash ah wafdigaasi waxa kale oo soo maray deegaanada Balxo iyo Malxo oo halkaasi ay ku wada kulmeen bulshada ku nool oo ay kaga wada sheekaysteen nolol maalmeedkooda iyo sidii gargaar loola garab joogsan lahaa bulshada deegaankaasi ku dhaqan ayaa mas'uuliyiinta gargaarkaasi soo gaarsiiyay uga mahad celiya waxaana ay sheegeen in ay aad u soo dhaweeyeen gargaarkaasi xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada waxa uu hoosta ka xariiqay in gargaarkaasi uga gol hayeen in dadkaasi ay ugu gurmadaan oo abaaro ba'an ay sameeyeen simaha wasiirka arrimaha gudaha Xamed Maxamed Aramiis isagoo halkaas ka hadlay waxa uu sheegay in xukuumaddu ka go'an tahay xoojinta adeegyada asaasiga ee bulshada ku nool dhulka ka fog magaalooyinka waxaana hoosta ka xariiqay inay ilaalinayaan agabka dugsiga iyo guud ahaan dhismaha uga baahan inay ka faa'iideystaan dhammaan carruurta halkaasi ee ku nool ee garabtiisa wasiirka qalabaynta iyo gaadiidka Maxamed Cabdulqaadir Muuse ayaa saaka booqasho kormeer ku tagay wadada Burhanbe halkaasi oo dib u cusboonaysiin lagu sameeyay booqashada wasiirka ku weheliya prefect magaalada madaxda mas'uuliyiinta wakaalada horumarka ee tika xogayaha guud ee wasaaradda simaha wakaalada wadooyinka Djibouti iyo agaasimaha deegaanka booqashadaasi waxay ka turjumaysaa rabitaan ku aadan la socodka hawlaha halka ay marayaan barnaamijka dhismaha wadada Burhanbe ayaa waxa ku laan dhismooyin kale oo loogu talagalay kor u qaadida bilicda magaalada madaxda dhakhtarka weyn ee Beltiye ayaa waxa qayb ka ah wax ka shaqeysa daaweynta ilkaha daaweynta si ayaa ah noocyo badan oo loogu talagalay in sida ugu habboon looga jawaabo baahida dhakhtareed ee bulshada gaar ahaan xanuunada noocyada badan ee ku dhaca ilkaha waaxdaasi qaabilsan ilkaha waxa ka howlgala dhakhaatiir takhasus iyo farsamayaqaano dhakhtareed oo aad aqoontoodu u sareyso waxa halkaasi yaal qalab casri ah oo si fudud u soo ragelinaya adeeg dhib yar oo hufan waaxdaasi maalin walba ay 20-30 qof oo in wax looga qabtoonka ilkaha hawlaha ugu mudan ee ay qabato waaxdaasi waxda siliga oo dadka loo galiyo sadafta oo loo xidho ilkaha raamay oo loo toosiyo qashinka iyo jeerka laga dhaqo ilkaha maydhiskood oo loogu sameeyo iyo cilmiye ka mid tahay buuxista iyo gowsaha oo la saaro dhakhtarka taasuska ah oo halkaas kula kulanay ayaa talooyinkan soo jeediyay weynaha waxa uu sheegay in lagu figo dhowrka iyo nadaafadda oo intuba badbaadinaya bulshada cudurka inta soo diifiroon caafimaadka ayaan xan ka qabanaa qofka marka ilkaha ka daataan ambulance daawga ambulance qofka oo ilig iyo on de marka qofku markaado ay ku ka daataan
ay horta naftiisii xagga aan noqoto xagga hadalkiisa ha noqoto boolase xagga quruxda noqoto inuu isbedelo qof ogaadinayna caafimaadka xaggiisadaan waa caafimaadka afka wax weeyaan ku oo xubnaha jirka qofka bini'aadanka kubaad aweyaan wax weeyaan waxa jira dad markasuusku galo yimaada amba iligu xoog u dhamaadee kariigu amba suusku u dhagan halkan dhakhtarka ku sameeyay garaac u yeesho markaas qofku waxa loo baahan yahay inuu sanadkii amba 6 bilood yimaado dhakhtarka caafimaadka afka isla caafimaadka iyadoo hormood ka tahay wasaaradda caafimaadka xarumaha caafimaad ee degmada Balbala waxaa laga wadaa howlaha talaalka caafimaadka ubadka 2 sanadood ka yar tahay howlaha talaalka waxay ka bilowdeen xaafadda Xiyaabley iyo Waraabi ee ka tirsan degmada Balbala oo koox ka socda caafimaad ee Xiyaabley ay xaafadaha ugu tageen ubadka yar 2 sano ay u talaalaan talaalkaasi ayaa waxaa lagu baadigoobay adkeynta caafimaadka dhallaanka yar 2 sano qaar kamid ah shaqaha caafimaadka ee xarunta aan warays la yeelanay waxay naga siiyeen faahfaahin dheeraad ah ujeedada talaalkaasi loogu talay caruurta ka yar da'dooda 2 sano yooyinkooda duruufta ay u waayeen inay keenaan dhakhtarada ee habsaan ambase aanan keenada aanu xaafadda ugu tagaynaa waxaanu u samaynaynaa taglaaladii intii ka batay waxaan keenaynaa hooyada karneegii ubadmeeyay taglaalka inay gacanta ku haysato ay ubadka halkaa keento si loogu buuxiyo halkii ka madnayd intii uunan taglaal qaadanin wasaaradda caafimaadka wax ay mar walba ay door bidilmaha waa muhiimsa weeyaan bulshada marka ilmahoodii una talaal lahayn waa ilmo uis ah xanuunada dilaaga ee toba ah ee waalidka loo dan leeyahay inay ubadkooga ka talaashaan taglaalka kolka ay sameeyo ilaa uu ilmuhu gaayo 11 bilood sanad hortii in taglaalkiisa loo buuxiyo hooyada waqtigaa gaarin ee taglaalkii u buuxinin waxaa laga leeyahay ilmaha keen ilaa uu 2 jir gaarayo taglaalkiisa waa laban karaa aqoon isweydaarsi ku aadan ilaalada caafimaadka xoolaha ka kala gudba soodimaha ayaa saaka ka dhacay Oboq iyo Tajoora aqoon isweydaarsigaasi waxa uu qayb ka yahay siyaasadda ballaaran maamulka waxaana gudbinayay aqoon isweydaarsigaasi agaasimaha xoolaha iyo adeegyada caafimaadka xoolaha Dr. Muuse Ibrahim Sheekh iyo ku-xigeenka prefega Cumar Jaamac ujeedada ugu weyn ee aqoon isweydaarsigaasi waxay tahay hay'adda hanaan sugaya caafimaadka xoolaha iyo xoojinta isdhexgalka agaasimaha guud ee xoolaha isagoo halkaasi ka hadlay waxa uu ka waramay ahamiyadda ballaaran ee ku xusan aqoon isweydaarsigani waxaanu intaasi ku daray aqoon isweydaarsigani faa'iido weyn u xambaarsan dadweynaha labadaasi gobol hoggaantii waxa uu sheegay in isweydaarsigu yahay mid lagu leeleeyo hanaanka sugaya caafimaadka xoolaha degmada iyo xoojinta isdhexgalka inta waxaan soo gaadhay geerida Caadil Axmed Yuusuf oo walaala wasiiradda hore horumarinta qoyska Xawa Axmed Allah u naxariisto marxuumku waxa uu ku yeeday weyn ee Beltiye marxuumka uu Jabuuti dhashay 962 waxa uu ka xawriyaasha weynaa ee wargeyska La Nation soo qabtay sida tafra agaasimaha bulshada iyo god magacaabay la taliyaha farsamo wasiirka warfaafinta Allah u naxariisto Caadil Axmed Yuusuf waxa si aad looga tixgeliyo baahinta dadkii guud qaala warbaahinta dalka ayaa tiiraayay qaramada uu ka baxay marxuumku wasiirka waaxda iyo wargaarsiinta Cabdi Yuusuf Sugay ayaa kala tacsiir tiiraayay u diray qoyska iyo qaramada uu ka baxay marxuumku wasiirka arrimaha dhaqanka iyo qafta Muumin Xasan Barre ayaa tacsiir tiiraayay u diray qoyska iyo asxaabta iyo helada iyo uu ka baxay waxaana eebba uga baryeynaa in uu naxariistii janno ka wariyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un wararka amka waxaan idinka haynaa caawa dalka Japan 10 qof ayaa la tooriyay oo toori lagu dilay meel dadka baahida gaar kale qaba lagu xanaaneeyo ay ku jiraan dad sidaas waxa sheegay hay'adda gargaarka ee dalka Japan dhacdadan oo maanta ka dhacday Sagamihara magaalada Leydhaa waxa la sheegayaa inay tahay dil wadareedkii ugu badnaa ee Japan ka dhacay dagaalkii labaad ee adduunka booliska Japan ayaa waxay sheegayaan in ay gacanta ku dhigeen ninka dhalinyarada dilka geystay isla markaana su'aalo weydiinayaan waxa la qabtay isagoo sita midiyo tiro badan oo qaarkood ka muuqdo xarunta uu weeraray ayaa waxa lagu xanayaa dadka naafada waxaana halkaas ku jira 150 qof waxa uu sheegayaa waxa uu sheegay booliska in dilkaasi uu ku doonayay inuu ku dabargooyo dadka baahida gaar kale
ku dambeeyay warkeygana waxa uu yahay fayraska Zika oo kamid ah fayrasyada halista ah ayaa markii ugu horeysay ka dilay qaaradda Yurub. Cudurkani ayaa inta badan saameeya carruurta yaryar waxa uu yahay fayrasyada koonfur Mareykanka badan ku faafsan qaaradda Yurub. Markii horeysay waxa laga helay yar oo ku dhashay magaalada Barcelona dalka Spain. ilmaha dhashay ayaa la sheegay inay kasoo qaaday fayraska Latin America halkaas oo 90,000 oo qof uu saameeyay. hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegtay inay markii ugu horeysay fayraska lagu arko qaaradda Yurub waxayna ka muuqdeen siiriskan waxayna hay'addu uga digtay dadka ku nool qaaradda Latin America inay ka toonadaan halis ah. daawadayaal qodobkaasi ayaanu ku soo afmeerinaa warkeyga caawa tan isku muddo warkan kale waxaad ku dhaafinaa nabadgelyo iyo amaan Allah.